Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dear students, welcome to Cilmi Online Academy. Casharka maanta waa casharkii 17aad. Casharkan waxaan ku baran doonaa Family Members Vocabulary. Family Members Vocabulary. Family members waa xubnaha qoyska. Vocabulary waa ereyo. Family Members Vocabulary. Family members waa xubnaha qoyska. Vocabulary waa ereyo. Marka casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa family members oo ah xubnaha qoyska. Waxaana ka mid ah mother. Mother waa hooyo. Mother waa hooyo. Father. Aabe. Aabe. Mother in law. Mother in law waa sodohda. Mother in law waa sodohda. Waa tuma sodohda. Waa hooyada ninka mise naagta ninka qabo. Ninka ku qabo hooyadiisa waxay ku tahay mother in law. Naagta aad qabto hooyadeeda waxay ku tahay adna mother in law. Mother in law waa hooyada ninka mise naagta ninka qabo. Ninka ku qabo hooyadiisa waxay ku tahay mother in law. Naagta aad qabto hooyadeeda waxay ku tahay mother in law. Waa sodohda. Father in law. Father in law waa lidka mother in law. Mother in law waa sodohda. Father in law waa sodog. Gabadha aad qabto aabaheed mise ninka ku qabo aabihiis. Gabadha aad qabto aabaheed mise ninka ku qabo aabihiis. Haddii aadna qabto naagtaas aabaheed waa father in law. Haddii uu ninku qabo ninka aabihiis wuxuu ku yahay father in law. Father in law waa sodog. Father in law. Partner. Waa lamaane. Partner micno kale ay leedahay laakiin halkan waxaan ula jeednaa micnaheedu waa lamaane. Partner waa lamaane. Dad waxay la micno tahay father oo ahaa aabe. Dad waa aabe. Father iyo dad waa isku mid. Dad waa aabe. Children waa caruur. Children waa caruur. Caruurtana waa xubno ka mid ah qoyska. Children waa caruur. Parent waa waalid. Uncle ayaa ah adeer. Adeerkaasi oo ah mid la dhashay aabaha. Uncle waa adeer. Adeerkaasi oo ah mid la dhashay aabaha. Uncle waa adeer. Adeerkaasi oo ah mid la dhashay aabaha. Niece waa gabadha aad u tahay abti. Gabadha walaalka uu dhalay mise walaashaada ay dhashay. Niece waa gabadha uu dhalay walaalkaaga mise walaashaada. Niece waa gabadha uu dhalay walaalkaaga mise walaashaada. Nephew waa lidka niece. Niece waa gabadha aad u tahay abti. Nephewna waa wiilka aad u tahay abti. Nephew waa wiilka aad u tahay abti. Wiilka uu walaalka mise walaasha dhashay. Nephew waa wiilka uu dhalay walaalkaaga mise walaashaada. Nephew. Grandson waa wiil aad u tahay awoowe. Grandson waa wiil aad u tahay awoowe. Wiilka gabadhaada mise wiilkaada uu dhalay. Wiil aad u tahay
awoowe wiilka gabadhaada mise wiilkaada uu dhalay. Grandson waa wiil aad u tahay awoowe, wiilkaas ha dhalo wiilkaaga mise ha dhasho gabadhaada. Granddaughter, 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 granddaughter waa lidka grandson. Granddaughter waa gabadha uu dhalay wiilkaaga mise gabadhaadu. Grandchild, 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 grandchild waa ilmaha aad u tahay awoowe, ilmaha gabadhaada mise wiilkaagu uu dhalay. Grandchild waa ilmaha gabadhaada mise wiilkaagu uu dhalay. Sister-in-law, 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 sister-in-law waa dumaashi. Sister-in-law waa dumaashi, walaalkaaga xaaskiis. Sister-in-law waa gabadha uu qabo walaalkaaga. Sister-in-law dumaashi, walaalkaaga xaaskiis. Brother-in-law, brother-in-law waa lidka sister-in-law. Sister-in-law waa gabadha uu qabo walaalkaaga. Brother-in-law na waa seedi, walaasha ninka qabo ayaa ah brother-in-law. Brother-in-law waa seedi, kaasi oo ah walaasha ninka qabo. Stepmother, 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 stepmother waa eedada, taasi oo ah mid aabbahaaga qabo. Stepmother waa eedadaada aabbaha qabo. Eedada uu qabo aabbahaaga ayaa ah stepmother. Stepfather, 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 stepfather waa lidka stepmother. Stepmother waa eedada uu qabo aabbaha. Stepfather waa adeerka hooyada qabo. Stepfather waa adeerka qabo hooyada. Stepfather waa adeerka qabo hooyada. Aunt, aunt, aunt waa eedo, aabbaha la dhalatay mise aabbaha walaashiis ayaa ah aunt. Aunt waa eedo, eedadaasi oo ah aabbaha walaashiis mise mid la dhalatay aabbaha. Cousin, 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 cousin waa in adeer dhalay adeerka la dhashay aabbaha. Waa carruurta uu dhalay adeerkaaga la dhashay aabbaha. Husband, 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 husband waa ninkeeda, qabo ayada. Husband waxaad ugu wici kartaa ninka ku qabo. Gabadha la qabo ninkeeda waxay ugu wici kartaa husband. Husband waa ninkeyga. Husband waa ninkeyga mise ninkeeda. Husband. Wife, wife, wife waa lidka husband. Husband waa ninkeeda, wife na waa xaas. Xaaska la qabo ayaa ah wife. Ninka waa husband, naagtana waa wife. Son, 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 son waa wiilkaaga adiga aad dhashay. Son waa wiilkaaga adiga aad dhashay. Daughter, daughter, daughter waa gabadhaada adiga aad dhashay. Daughter waa gabadhaada adiga aad dhashay. Sister, 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 sister walaasha kula dhalatay. Sister waa walaasha kula dhalatay. Ha dhalo aabbaha mise ha dhasho hooyada. Sister waa walaasha kula dhalatay. Brother, brother, brother waa lidka sister. Brother waa walaalka kula dhashay. Sister waa walaasha kula dhalatay. Brother waa walaalka kula dhashay. Ha dhalo aabbaha mise ha dhasho hooyada. Grandmother,
grandmother, grandmother, grandmother. Grandmother waa ayeeyo dhashay hooyada mise aabbaha. Grandmother waa ayeeyo dhashay hooyada mise aabbaha. Grandmother waa ayeeyo dhashay hooyada mise aabbaha. Grandfather, 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 grandfather. Awoowe dhalay hooyada mise aabbaha. Grandfather waa awoowe dhalay hooyada mise aabbaha. Grandfather. Grandparent, 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 grandparent. Grandparent waa ayeeyo iyo awoowe. Grandparent waa ayeeyo iyo awoowe. Markaan labadooda isku geyno waa grandparent. My grandparents haddaad dhahdid waxaad ula jeedaa micnaha awowga iyo ayeeyada. Insha Allah hal tale ayaan ku sii doonaa aad ku soo xasuusin doontid family members oo ah xubnaha qoyska. Qof kasta wuxuu haystaa taleefan, qof kasta ha sameeyo taladan aan siin doono insha Allah. Qof kasta wuxuu sameynayaa nambarada sida tusaale hooyada nambarkeeda waxaad ku qoraysaa mother, aabbaha nambarkiisa waxaad ku qoraysaa father, walaalka nambarkiisa waxaad ku qoraysaa brother, walaasha nambarkeeda waxaad ku qoraysaa sister, adeerka nambarkiisa waxaad ku qoraysaa uncle iyo wixii la mid ah. Marka haddii aad saas samaysid waad xasuusin doontaa insha Allah waxyaalahan aan halkan ku baranay. Waxay ku noqonayaan practic insha Allah. Marka qof kasta saas ha sameeyo. This is the end of our today's lesson. Casharkeena maanta halkan ayuu nooga dhan yahay. Waxaan idin rajaynayaa guul. Bye bye. See you in the next lesson. Goodbye. Nabadgelyo.